إن سودو عمر كرم قعد محمد عبد الحرير محمد عبد الحرير waxaan weydiinaa su'aalan dadweynaha Hargeysa dhexdoodnay oo ah afar lamaane oo kala tagay maanta kala faataxaystay haddaad awood u lahaan lahayd inaad isku soo celiso afarta lamaane aad isku soo celineed magacooda aan ku sheego waa Rasim Rays iyo Farxaan Yare iyo waliba Rashka Boy iyo Xabsa afarta la doonay la isku soo celiyo mid ka mid isku soo celiyo ma laba kala isku soo celina qadar sanamiye mursal bas isku soo celina waa lamaane qarniga aboog baad aragsiyo qabr Suudaan afarta isku soo celina afarta ma qiimeeyay aad maasanta walaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula duwaan wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran channelka Saahir Laayoon maanta waxaan idin wadnaa barnaamijkaas oo ah afar lamaane waxa weeyaan waa afar lamaane oo kala tagay oo maxay ahayd tole kala holeelay bal dadku rayahay ka qabaan dadka inay isku soo celin lahaayeen macnaha kuwa isu si qalma ee nolosha dib isku soo celin lahaayeen ayaan weydiin doonaa isla shacabka aan su'aalo hore weydiin jirnay iyo cid kalaba in soo dhawlaan walaalo aad buu maasantan nimca magacaygu waxa la Axmed Cabdi Faarax waxa ku magac dheer Axmed Jacayl soo dhaw Axmed Jacayl horena waynu kulannay aad iyo aad marin musabix ka wada hadlaynay soo dhaweynaya marka hore labaad waxaan ku weydiinayaa su'aal ah laba la afar lamaanayaasha haddaan magacooda ku sheego waa Rasim Rays iyo Farxaan Yare iyo Rashka Boy iyo Xabsa kuwaba isu si qalma amba kuwaba soo dhan nolosha ha isku si ag dhamaystaan isku soo celiya dad awood leh wani horta meeshan waxa la YouTube baa la baraha bulshadana waxa weeye waxay afar badan ma dhaxaraya dadku jacaylada si afar badan uga hadlayaan mid caaya mid gaadiya mid wax buu ka hadlayaa marka anigu mar hadii saaxada YouTube lagu jiraba waxaan oranaya macaashiqiinta halka ku jira anu wax kale ku soo gabagabay ma garay laakiin iska wada macaanaad baro laha mar hadii meeshan lagu jiro isku soo celinaysaa ma jirto waxaan isku soo celinaynaa ruuba dadkiiba isku diraayeen mar walba mar hadii dadku isku dirayaan anagu waana si qasnaan dabka si shidnaa dabka in la sii shidaa ku wanaagsan ha waa qasabtay way dadkiiba dadku wada shidaya lamaanun waxay ku wanaagsan yihiin inay meeshooda joogaan aanay soo gelin saaxadan miidiyaha saaxadan miidiyaha mar hadda soo gasho waan ugu tala gashaa in dab lagu shido in wax lagu istaaro in adigu laftigaaga wax shido marka aanu dadka waxaan fartu taageen wax la shishido ninka waxaan islaa waa arrimihii jacaylka ka soo darka waxaan islaa waa arrimihii jacaylka waxbuu soo mislaxaya waxbuu kala wadayaa laakiin adigaagii hebel jacayl haddaad sidaas tidhi bal waaye dadka kale la su'aalahooda jawaabahooda sugi doona aad iyo aad baad maasantay walaal haddaan kaga nimaadno halkaas su'aashaas jawaabta waxaan soo dhaweyn doonaa isla shacabka wiil daayar baan haynaa soo dhow quraxa habaree wandhoy magacaaga maxamed xasan jaamaca waxaan ku weydiinayaa horta jacaylka wax ma ka taqaanaa aad iyo aad weeyahay aad baad maadsantahay habaree waxaan ku weydiinayaa afar lamaane su'aashaynu maanta wadnaa sidaas ah Rasim Rays iyo Farxaan Yare ma taqaanaa sidoo kale ma taqaanaa Rashka Boy iyo Xabsa afarta lamaane kuwaba isu qalmad isku soo celin lahayd oo isfuraan taaya hadaa isfuran dadka isku sii diraya dadka shacabku bal lagu oran lahaa dadka isku sii dirinaya dadku baa kale dabka shidaya heeray dadka ilaa la hadlay damaanad wax kale lama sameyn karo way adigu hadaad awoodo ma isku soo celinayd afarta lamaane laba kamid ah ayaa isku soo celinayd Xabsiya Rashka Boy gamise Xabsiya Rashka Boy labadaas isku soo aad iyo haddaan laga kaga nimaadno su'aasha walaa wiil yar oo daayar baa hadana maskaxda ku jira la yaabay soo dhow walaal hadhowahay walaal magacaaga hore nukula maxamed aan saciid insha Allah dirba suuqa dadkii shacabka aad iyo aad walaalo waxaan ku weydiinayaa su'aal ah afar lamaane oo nolosha imka ku kala tagay waa lamaanayaasha haddaan ku magacaabo waxa weeyaan Rashka Boy iyo Xabsa iyo Farxaan Yare iyo Rasim Rays kuwaba isku soo celin lahayd oo oran lahayd nolosha sii wada jooga oo way kala tagay si la isku soo celiya ma adigu hadaad awoodo kuwaba isku soo celin lahayd Rashka Boy iyo Xabsa markaas sababta ma noo raacani sababtu dad isku qalmo waqti badan soo wada joogay weeye in la isku soo celiyo xaq buu leeyahay aad iyo aad baad maasantay walaalo marka kaga nimaadno su'aashaas waxaan weydiinaynaa isla qof kale intuu taagan ba shakhsi kale soo dhow adeero marka hore magaca Saciid Shabaala Saciid waxaan ku weydiinayaa afar lamaane oo isfuray yaad isku soo celin lahayd waayo simil galaba isku soo celin simil galaba isku soo celin afarta lamaanaha ma ku magacaabo waxa weeyaan hadaad garanayso Rasim Rays iyo Farxaan Yare iyo Xabsa iyo Rashka Boy afarta lamaane kuwa isu qalmo soo leeyahay nolosha dib isku soo xaga jacaylka gabadha xaga diinta maraan xaga diinta igita saashan wadnaa saasa maanta jacaylka ma aqaan ma jacaylka ma aqaan ay aad iyo aad baad maasantahay adeero hay haddaan halkaa kaga nimaadno su'aashaas qaaliga waxaan soo dhaweyn doonaa asxaab kale haddaan halkaa
su'aasha kaga nimaadno soo dhawo la qorxay وندوي قالي حمد عبد الله حمد عبد الله waxaan ku weydiinaa su'aalan weydiinay dadweynaha reer Hargeysa afar lamaane oo kala tagay afarta lamaane waxa weeyaan rasmi rays iyo farxaan yare iyo waliba rashka boy iyo xabsa hadii aad awood u leedahay maanta yaad isku soconin والله أفر تبي حق بان جعلها يعني أفر لما نتاجر تشري بهاين هدي له يورن لا لبي اسكو سو علينا رشك بوي حبسنا الله اسكو قلنتاله اسكو يا حد اسكو يا ما شاء الله عادي يا دود ما سنت حمدان كاga mahad celina waqtiga qaaliga hadaan fikirka xamda ka nimaadno waxa soo dhaweynaya isla shakhsiga in soo dhaw marka hore magaca maxamed cabdi xariir maxamed cabdi xariir waxa weydiinaa su'aalan dadweynaha Hargeysa dhexdoodna oo ah afar lamaane oo kala tagay maanta kala faataxaystay hadaad awood u lahaan lahayd inaad isku soo celiso afarta lamaane aad isku soo celinayd magacooda ku sheego waa rasmi rays iyo farxaan yare iyo waliba rashka boy iyo xabsa afarta tala doonay la isku soo celiyo mid ka mid isku soo celiyo meelun laba kala isku soo celina qadar sinimiye mursal bas isku soo celina waa la maani qarniga aboog baad aragsiyo qabr sudaani afarta isku soo celina afarta ma qiimeeyay lak ayaad doonaysan walaala afar kala lamaane weynoo dalbayo iyaguna nolosha ku kala tagay in haddaan halka kaga nimaadno su'aasheen dhaxoodnay inankaas wuxuu dadkaas isku soo celina magacaaga magacaaga xamsan xamso waxaan ku weydiinayaa su'aalan dadweynaha reer Hargeysa dhexdooda su'aashaas waxa weeyaan afar lamaane yaad isku soo celinayd afarta lamaane haddaan magacooda ku sheego waxa weeyaan rasmi rays iyo farxaan yare iyo waliba rashka boy iyo xabsa yaad isku soo celinayd fikirhaanteeda waxaan la raxmad rays iyo farxaan yare sababta ma yartaa lamaane qarniga haay marka waxa lamaanaha labanaan laga marmo way aad ma hasanto walaalo marka ka mahad celin waqtigaaga qaaliga haddaan inta kaga nimaadno fikirka inanka qof kale soo dhaweyn soo dhawo la magacaaga jaamaca waxaan ku weydiinaa su'aalan dadweynaha Hargeysa dhexdoodna oo ahayd afar lamaane aad isku soo celin lahayd afarta lamaane haddaan ku kala sheego waa rasmi rays iyo farxaan yare iyo rashka boy iyo waliba xabsa yaad isku soo celin lahayd rasmi rays iyo soo celina iyo farxaan sababta ma yartaa iyagu hor iyagu isku cusbaayeen markay isleeyeen kooxda iyagu waqti kala dhamaadeen labada tiimka waqti yar qaatay iyagu waqti haray iyaga soo celina aad iyo aad bad ma santay walaal bismillaah soo dhaw walaal magacaaga waan dhaw walaal magacaaga waa maxamed cabdi cali waxaan weydiinay su'aal ah dadweynaha reer Hargeysa dhexdoodnay afar lamaane isku soo celi afarta lamaane haddaan ku magacaabo waa rasmi rays iyo farxaan yare iyo rashka boy iyo xabsa haddaad maanta awoodo yaad isku soo celinayd raxmad rays iyo farxaan yare rasmi rays iyo farxaan yare sababta noo yartaa sababta keentay wallahi waxa romantic ah inuu isku wacnaa waxa romantic ah kulli aad iyo aad ma santay walaalo soo dhaw magacaaga walaal farxaan waxaan ku weydiinaa afar lamaane isku soo celi su'aalaha Hargeysa dhexdooda dadweynaha reer Hargeysa afarta lamaane haddaan ku magacaabo waxa weeyaan rasmi rays farxaan yare rashka boy iyo xabsa maanta dad dib u midowsiin lahayd amba lamaane dib uga dhigi lahayd yaad isaga dhigi lahaa horta lamaane lamaane doortay weeye kaadana kala tagi weeyaan marka waxaan ku anigu dib isku celintooda raalmaanka waxaan ku isku soo celinaa raalmaanka marka la isku soo celiyo waxaan ku waayay labada isku soo celinaa rasmi rays iyo farxaan mise rasmi rays farxaan ma isku celinaa gaar ahaan waliba aad iyo aad laakiin sababtu noo raacay sababtu noo raacay ma waayo waxaan ku dhamaano iska tacsiin haday Estonia weyn isku soo noqdaan mar labaad marka raalmaanka marka isku soo noqdaan waa aad iyo aad bad ma santay walaalo